haddii aan ka bilaabo dhinaca midabka waxaa arkayda fadhiya nuur aadan oo ku magac dheer cawl xaggaas waxaa ku xiga Ayshimaa Khaliif waxaa jira asxaab kale oo naga tirsan laakiin hadda aan nala soconin ayagana way soo salaamayeen haddii aan ka gudbo waad ogtihiin waxay ka dhacay shirkii lagu qabtay Lagdima uma baahna faahfaahin dheeraada inaan ka bixiyo haddii laakiin laba saddex qodob aan ka taabto cadaalad darra xun ayaa ka dhacday halkaas xadgudub ayaa ka dhacay sidaa awgeed aniga iyo ragga nila socda iyo kuwa idiin sheego oo soo salaamaya waynoo cuntami waysay sidoo kale dadkiina halkan jooga reemeeli waad garanaysaan waa chairmanka musharaxiinta maqaawal walaalayaal aad baan idin salaamayaa magacaygu waa Cawl Aadan Axmed waxaan u soconay intuu sheegay walaalkayga ku raacsanahay Dr. Maxamed Kahir waxaan u soconay qodobka labaad waxaan aaminsanahay waxaad ogtahay ma kuu sheega waxa ka dhacay Habasweyne Lagdima waad ogsoontiin sideed musarax laba la yiri yaa wax lagu tilmaamo la yiri waxaan qaata shan kamidana way ka gadaysan taariinka anagoo shan anaga ka gadaysan baan warqad u qornay meel baan fariisanay waan ogsoonnahay wixii Lagdima ka dhacay inuu qalad ahaa inuu dulmi ahaa inuu xaqdarro ahaa inuu isdabamarin ahaa maxaynu samaynaa shacabweynahanagana ma ahayn waxa qaladkaa sameeyey waxaa sameeyey 12 nin oo guddiya oo la yidhi halkaa fariista wax soo saara 12kii laba kamid ah geedkii bay ka xanaaqeen waxay yidhahdeen waxaan sida aad u wadaan waa dhaliilsannahay labadaaba waxay ahaayeen laba reemeeriya samaha loona aabayeelin lama joojinin broseskii hor baa loo sii waday